Sanadku waa 2017. Waa arooryo hore oo aan ka duulayo magaalada Wajeer ee dalka NF Soomaal. Waa xilli kaliil ah oo bisha Maarso ay gabaabsi tahay. Waxa aan ku sii jeedaa oo safarkaygu uu ku wajahan yahay xarunta guud ee maamulka Hon Union ee magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland, oo aan kaga qayb geli doono 27 bisha Maarso ee 2017. waa shir lagaga hadli doono sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka dalalka Soomaalida. Waxaa shirka ka soo qayb geli doona wadamada shanta ah oo ku bahoobay ururka Hon Union oo kala ah Djibouti, Somaliland, Soomaaliya, Soomaal oo hore loo oran jiray dowlad deegaanka Soomaalida oo dagaal qaraar kadib dunidu aqoonsatay dalka madax bannaan Itoobiya inteeda kale, iyo sidoo kale NF Soomaal oo hore loo oran jiray NFD kana xoroobay dalka Kenya sanadkii 2049. aniga oo ah u qaabilsanaha ururka dalka NF Soomaal, waxa ii qorshaysan inaan khudbado dhowr ka jeediyo golaha Hon Union. waxa ugu muhiimsan inaan golaha u soo jeediyo in ciidamada laga daba diro khubarada Soomaalida ah ee loo diray xeebaha Mozambique ee sunta lagu shubay. Saacadda Bariga Afrikada oo sheegaysa 9 subaxnimo ayaan soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland. Hargeysa waxaan ka maqnaa dhowr bilood. Waxaa airport-ka igu soo dhaweeyay Jaabir Ibraahin oo ah danjiraha Soomaal u qaabilsan ururka Hon Union, iyo sidoo kale Maxamed oo ah wasiirka biyaha Somaliland. Isbaridin iyo soo dhaweyn kadib waxaan qolka VIP-da kula sheekaystay Maxamed oo iga dalbaday inaan u raaco Berbera oo berita dowladda Somaliland xadhiga ka jari doonto warshad weyn oo biyaha badda u bedeli doonto biyo macaan oo la cabbi karo. waanan ka aqbalay. Subaxdii xigtay markii waagi baryay ayaan ka dulnay gegida diyaaraduhu ka haadaan ee magaalada Hargeysa, aniga iyo wafdi ballaaran oo ka qayb geli doona munaasabadda lagu furayo warshadda biyaha badda sifayn doonta ee magaalada Berbera. Ugu dambeyn waxaan soo gaadhnay magaalada Berbera oo la ciirciiraysa wufuud caalami ah oo la dhacsan warshadan weyn ee ah tii ugu horeysay ee nooceeda ah ee laga hirgeliyay Afrika. waxaana ugu tun weynaa madaxweynayaal badan oo ka kala yimid dalal badan oo caalamka ka mid ah. goor ay goorsheegta geeska Afrika cagacagaynayso 3 galabnimo ayay soo dhammaatay munaasabadda daafurka warshadda. intaas kadib waxaan u soo jeesanay dhanka Hargeysa oo berri ka furmi doono shirka ururka Somali Hon Union. goor ay cadeedu soo jeedo ayaan Hargeysa soo gaadhnay, aniga oo toos u aaday hoteelka martida ee ururka Somali Hon Union. cabbaar markii aan nastay waxaan la soo baxay dokumentiyadii aan berri ka jeedin lahaa golaha ururka Somali Hon Union si aan isugu habaysto una sii diyaarsado. kadib waxaan furay daaqad ka mida qolka aan deganahay. waa goor fida oo ilayska iyo kaaha magaalada Hargeysa indhuhu jeclaanayaan. waa magaalo guulo badan xaqiijisay. sanadkii 2065 kaalinta koowaad ka gashay caasimadaha ugu quruxda badan Afrika. waxaan indhaha la sii raacraaca magaalada. waxaa mar kaliya isku kay soo xaadiriyay xusuuso mugdi ah oo Soomaalidu soo martay. waa hadh iyo labadiisa geline Hargeysa oon caawa kor ka daawanayo quruxdeedana la dhacsanahay. waxa ay taariikhdu sheegaysaa in dad Soomaali ah oo Islaam ah oo halkan deganaa ay rushaysay diyaarad ay wateen dad Soomaali ah oo Islaam ah. waa dowladdii Siyaad Barre ah. imikase dhowr iyo 80 sano kadib waa aniga oo ka imid Wajeer si sharaf iyo karaama ku jirta laygu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. iska daa in qof Soomaali ah lagu takoore Soomaalida ayaa hore ugu mahmahday lafagari iyaga la isku jabiyaa. muddo ay Soomaalidu cadow isku ahayd. maanta oo la joogo 2017 qoomiyadda Soomaalidu waa ummadda ugu saameynta badan Afrika. ururka Somali Hon Union waa ka sumcaddii Soomaalida soo celiyay. waa urur caalami ah oo sheeqiye meeshana ka saaray ururkii hore ee hoggaanka u hayeen cadowga Soomaalidu ee IGAD. weligay isma odhan dadka Soomaalida ayaa isbeddelka intan leeg la iman doona, laakiin waxaa taabageliyay dhalinyaro hanle oo ka caafimaad qabay qabyaaladii Soomaalida wiiqday. waxaanay garteen in ay qayb ka noqdaan loolanka iyo horumarka dunida ka socda. sanadkii 2055 ayaana la aasaasay ururka Somali Hon Union oo ay ku bohoobeen 5 dal ee Soomaalidu
waa urur kaalin firfircoon ka qaata arrimaha ammaanka Afrika, caafimaadka, waxbarashada oo dalalka soo koraya ururku gacan weyn ka geysto. Waxa uu ururkani leeyahay cudud ciidan oo ay ka midaysan yihiin dhammaan 5 dal, kaasoo si toos ah uga hortaga mashaqooyinka iyo muranada soo kala dhexgala wadamada Afrika iyo qaybo ka mid ah Aasiya. Waxaa soo laabtay sharafkii iyo karaamadii Soomaalidu ay ku lahayd adduunka, waxaanay guul weyn u soo hoyatay jiilka dambe ee Soomaalida. Qodobka ugu weyn ee Soomaalida heerkan soo gaarsiiyayna waa iyaga oo ka takhalusay qabyaaladii foosha xumeyd oo wax kale iska daayo. Xitaa doorashooyinka 5 dal ee Soomaalida waxaa laga soo agaasimaa xarunta ururka Somali Hon Union oo fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Somaliland, waxaana ku boobay ururka 5 dal ee Soomaalida. Aniga oo wali naftayda kala sheekaysanaya marxaladii kala duwanaa ay Soomaalidu soo martay, ayaan mar qudha jaleecay saacada 10:00 habeenimo. Saaka Hargeysa waxaa ka furmaya shirka ururka Somali Hon Union oo ujeedka safarkaygu ahaa. Markii waagi baryay waxaan isku diyaariyay kulanka, goobtana iska xaadiriyay. Shirku waa furmay, saacaduna waa 8 aroornimo. Waxaa si kedis dhagaha iiga galay hoonka baabuur wadada maraysa. Waxa aan ka soo baraarugay mala-awaalkii bilicda samaa ee ku jiray halka aan fadhiyo. Waa maqaayad ku taala magaalada Hargeysa oo bilaa camal la fadhiyay. Ilayn waan riyoonayay. Amintu waxay sheegaysaa abbaara 4 galabnimo ee goorsheegta Geeska Afrika. Wadanku waa Somaliland oo weli caamadu siyaasiyiin ka yihiin, bulshaduna abaaro iyo sixir barar ka cabanayso. Waxa aan eegay goorsheegta mar kale. Sanadku waa 2023, waayuhuna waa iyagii.